السلام الله عليكم الصحابة isku soo noqosho wanaagsan halkaad fiidiyowga ka daawaneyseen waa Dr. Xaashi Network aniguna waa Dr. Xaashi haddaad hore noola joogteen waa ku mahadsantihiin haddaad nagu cusubtihiin kusoo dhawaada pageka Dr. Xaashi Network Facebooka iyo YouTube-ka pageka aan ku leenahay labadaba Dr. Xaashi Network Dr. Xaashi Network waa kuma maxaan qabtaa channelkanu muxuu yahay fiidiyoon hore uga duubay fiidiyowgaas soo daawan doontaa insha Allah fiidiyowgan maanta wuxuu ku saabsan yahay ramadaanka waxaan wada ogsoonahay in badan oo annaga naga mida ama gebi ahaanteenba inta soonta iyo inta hadda soomi doontaba waxaan ogsoonahay inuu yahay waajib qof kasta oo muslina ku yahay oo qaangaara ilaa kuwii loo cudurdaaray maahan waxaan ogsoonahay inuu waajibkaas ka sokow inuu cibaado yahay oo ejer xagga alla laga bixiyo aan ka helayn intaa ka sokow waxaan rabaa fiidiyowgan inaan idinkula wadaago arrimaha caafimaadka oo laga helo oo ramadaanka ku gadaaman dadaan muslimiin ahaynu ma soomaan 10 sano waliba u dambeeyay maxaa loogu sheegay oo u soomaan soonka ay soomaan waa noocyadiisa maxaa loo yaqaanaa muxuu uga duwan yahay midka aan soonno meel aan iska leenahay ma jiraan waxaasoo dhan waxaad uga boga doontaa fiidiyowgan gaaban ilaa aakhir dhimayso dadkana la wadaag okay haddaan noogu bilaabo 10 sano ugu dambeeyay waxaa soo badanayay cilmi baarista lagu sameynayay soonka iyo dadka sooma oo dhinaca caafimaadka laga eegayay soonkaas waxaa loo yaqaanaa oo dadkaan muslimiinta ahayn ay soon muslimiin badan oo soontaana waa jiraan soonkaas waxaa loo yaqaanaa intermittent fasting loo yaqaanaa soonkaas intermittent fasting loo yaqaanaa 3 nooc ayuu intermittent fasting kaas u qaybsamaa nooca koowaad isla socosho wanaagsan nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa time restricted fasting la time restricted fasting ayaa la yiraahdaa 8 saac 8 to 12 hours of eating followed by 10 to 14 hours of fasting maxaa loola jeedaa waxay sameynayaan waa soonka koobaad oo ay soomaan oo intermittent fasting ya dhowr nooc 3 nooc oo qaybsama waxaa loo yaqaanaa qaybta koobaad waa time restricted waxay sameynayaan 8 saac ilaa 12 saac ay wax cunayaan window of eating way ka dambe dhowr iyo 10 saacadood oo ka dambeydana way soomayaan soonkaas ay soomayaan cuntaday ka soomayaan biyaha way cabayaan shaaha aan sonkorta lahayn iyo green tea iyo waxyaalahaas yaryarka ah oo way cabayaan laakiin cuntaday ka soomayaan maanta ku xigtana sidaas u sameynayaan soonkaas time restricted ay yiraahdaan haddaad dib u fiirido ramadaankan caadiga oo aan anagu soomayno uu aad ugu dhow yahay sababtoo ah maqribkii sunset to sunrise aan afuranahay maqribkii aan afurnaa ilaa suxuurta laga gaaro waabarkiina waan iska cuntaynaho waa afurana dhowr iyo 10 saacadood wadamada qaar way ogtihiin 16 saacadood la soomaa wadamada qaar 12 saacadood la soomaa sida Soomaaliya iyo East Africa oo dhanba inteeda badan wadamada qaar 15 saac wadamada marka saacadahaasna waa soonna halka markaad uga jeedo ramadaankeyga caadiga ah uu timeka uga egyahay intermittent fasting ka midka labaad waxaa la yiraahdaa ratio pattern eating or fasting ratio pattern fasting waa 5 days of eating iyo 2 non-consecutive days 2 maalmood oo aan isku xigin asbuuci laga soomaa si fiican ila socaya 2 maalmood oo aan isku xigin ayaa asbuuci laga soomayaa 5 maalmood oo isku xiginna waa laga afuran waa sidii kii hore oo laakiin cabitaanka iyo maaragtay waxyaalahaas kalkalo iyo caadiga kama soomaan cuntadii ka soomayeen waa intermittent fasting waa ratio pattern fasting faa'iidada waa usoo laaban doonaa iyagoo dhan waa isku faa'iida laga raadinayaa laakiin waxaan rabaa inaad ka ogaato meelaha similarity-gu ay ka jirto oo aan isaga egnahay maxaa kugu soo dhacayda markii lagu yiraahdo 5 maalmoodna waa la afuranayaa 2 maalmoodna waa la soomayaa oo labadaas maalmood ay isku xigeen waa Monday iyo Thursday-dii dadka muslimiinta ah oo ay soomi jireen in badan oo kamid ah oo maalmaha sunnada la soomo congratulations haddaad soonto allahna ka aqbalo faa'iidana waa ka helaydaa caafimaad oo
aad ogaa doonto. Marka waa labadaa maalmood kii uga egyahay. midka saddexaad waxaa la yidhahdaa alternate fasting days. alternate fasting aa la yidhahdaa. waa maxay? waa maalina waa soomaa qofku, maanta ku xigtana waa afuran yihi, maanta ku xigta haddana wuu sii soomaa, marka asbuucii 4 ilaa 3 maalmood ay ku noqonayda. kaas meelna isagama ekin. sidoo kale full fasting maan waxaa laga yaabaa half day inuu sooman yahay qofku, macnaha shalay cunto fiican aan cunaya, 3 waqtiyaan cunaya, maanta 2 waqtiyaan cunaa ama 1 waqtiyaan cunaa ama waxba cuni maayo. waa low intake, low caloric intake way. marka qaybtaas waa ka duwanahay oo macnaha meel aan iska shabahna taas lama arko. laakiin labadii hore waxaan niri time restricted iyo ratio pattern fasting waa isagaagni. maxaa loo soomayaa wey marka? maxay u soomayaan? waa soo sheegnay 3daas noocay u soomaan. dadka aan muslimiinta ahayn weliba 10kii sano u dambeeyey way soo badanayeen. waxaa la sameeyey researchyo ama daraasado badan oo caafimaad. keliyana daraasadaha aan ka hadlayo adduunka oo dhan maaha, waa Maraykanka iyo Canada oo wadamada westiga ugu horumarsan ku jira daraasadaha caafimaad oo la sameeyey oo ay clinicyo waaweyn ka qayb qaateen. meelaha aan hadda soo xiga doono waxaa ka mid ah Mayo Clinic, mid ka mid ah xarumaha caafimaad oo ugu waaweyn Maraykanka. dadka reer Maraykan hadda ay daaweydiin waa garanaydiin Mayo Clinic. waa clinicyo aad u waaweyn oo caafimaad meelo badan ku yaala. waxa marka laga raadinayo cilmi baarida lagu soo ogaaday waxa waaye oo ay dadkaas aan muslimiinta ahayn oo ay u soomayaan oo hadda aadka u soo badatay inay soomayaan waxa waaye kow, sideeda markuu qofku uu soomo maxaa dhacaya? waxaa dhacaya jirku inta badan markaan wax cunno oo aan wax cunayno, cuntadaas aan cunno glucose ay noqotaa, energy ahaan glucose iyadaasaa jirku u isticmaalaa. wixii aadan activity-gaadii oo jirku uusan u isticmaalayn intii kalena storage jirku u diraa. content video laga samayn karaa siday u shaqeeyaan iyo sayniskaas hadda ma rabo inaan sii dhex galo. waa enzymes oo jirka ka mid ah ama mishiimo kala hagayaa jira oo energy-ga aad uga baahan tahay aad isticmaalaydo. intii kalena waxa waaye storage, glycogen storage loo diray. storage-kaas markii loo diro fat ay noqonayaan. fatkaas markii loo diro jirka qaybo badan oo ka mid u galaya. hadduu bato batana waa waxyaalaha xanuunka keeni kara oo cardiovascularka keeni kara oo xayro inay dhiiga gasho keeni kara oo waxaasoo dhan keeni kara. marka maxaa dhacaya marka aad soonto? jirku markii uu waayo glucose-kii degdega ahayd ama cuntadii aan ta cunto energy isu bedelayday, wuxuu shiftiyu samaynayaa. glucose pattern-kii uu wax u digest gareeyay iyo systemkii shiftiyu jirku samaynayaa. wuxuu ka shifti garoomayaa energy dependent-igi uu ku tiirsanaa energy aad afka ka cunto, wuxuuna isu bedelayaa fuel oo storage fuel ah. waa kii hore u store garaysnaa uu dib u isticmaalaya. meeshaas wey marka meesha faa'iidada badan oo ka imaanaydo. waxaa dhacayda marka energy regulationkii dhan oo systemka isbedelaya, jirkii dib asaga isu isticmaalaya. repair and maintenance cell wax la yidhaaha dhacaya oo cells dead ahaa oo ama dhintay oo uu jirku ka takhalusaya. waxyaalahan loo baahnayn oo dhan uu ka takhalusaya. kuwa kaleu repair garaynaya, kuwa cusub regenerate garaynaya. faa'iido badan halkaas ka dhacayda. energy regulationki qaabkii hore uu u shaqeeyahay energy-gaaga oo dhan waa iska bedelayaa. wuxuu isticmaalayaa inuu protein breakdown iyo fat breakdown iyo inuu sameeyo oo fuelkii aad ku shaqeeyahayda lama aragto markaad soonto sidaadii shaqadaadii usii wadaydaa, sidaadii wax badan isa kaa bedeli maa inaad gaajooto aan ka ahayn. jirkaaga sidii u shaqeynaya, enerjiyadii store garaysnaa uu dib u isticmaalaya. oo markii hore fat ka ahaa, oo markii hore dhib kugu noqon lahaa, oo markii hore xanuuno mustaqbalka kugu keeni lahaa, uu jirku isagu nadiifinaya. hadda waa fursad. marka saasuu storage-ki u isticmaalaya. markuu isticmaala maxaa dhacayda marka? maxaa ka dambeeya markuu jirku saa isu bedelo? waad aragteen in badan oo idin ka mid a markaad waqti badan soomanata xataa neeftaada karkeed waa isbedelaydaa. waxa waaye jirkiya breakdown waa mishiimada gudaha jirka ka socda waxa ay samaynayaan oo enzymeskaas ay protein breakdown ay sameeyaan. saasaa neeftu isu bedelaydaa. qofka neeftiisu xataa isbedelkeedu halkaas uu ka imaanaya oo waa protein breakdown-kaas meesha uu ka imaanaya iyo systemkii oo isbedela jirku siduu u shaqeynaya. maxaa dhacayda marka? saameyn isbedelkaasu saameyn noocee uu keenaya? kow, blood sugar regulationkii uu blood sugarkii hoos u dhigayaa. 2, blood pressurekii hoos u dhigayaa. 3, oo midda ugu muhiimsan, cholesterol levelkii hoos u dhacaya qofka. waa ma aragteen in badan oo dadka ka mid ah waxaa laga soo diagnose kaleeya cholesterol. cholesterolka haddii macnaheeda af Soomaali laga dhigo waa dufanka ama xayrta ku jirta jirka oo dhiigga la socota weeye.
oo cloudka noqon karta mustaqbalka oo dhibaato badan keeni karta wey. marka levelkeedu hoos u dhigaya. ileen waxaan nidhi fat storage jirku isticmaalaya anaga weliba markaan 30 maalmood soonna waqti dheer u isticmaalaya oo uu maaragtay fat storage-kaas uu jirku isticmaalaya. taas waxay keenaysaa marka cholesterol levelkiinu hoos u dhaco. maxaa kana hoos u dhacaya oo ay khubaradaas caafimaadku ay sheegeen? waxaa hoos u dhacaya inflammation, chronic inflammationkii jirka ku jira, xanuuno badan oo chronic inflammation macnaha halkan xabad xabad hadda idinkuguma soo dayahayo videogan muhiimadiisu mahay, laakiin chronic inflammatory xanuuno badan oo la yiraahdo iyaguna improvement uu ka sameynaya qofka oo uu soonkaas uu hoos u dhigaya. marka faa'iidooyinkaas baa loogu sheegay oo cilmi baaris lagu soo ogaaday oo xarumo caafimaad iyo testing iyo intaas oo research laga soo sameeyey baa soonka lagu soo ogaaday iyo faa'iidooyinka ku jira. marka maadaama aysan ayagu cibaado u soomayn inay biyo yar iyo wax yar ay cabaan iyo waxba taas kama bedelayo, sidii faa'iidooyinkii caafimaadka waa ka helayaan midkaas. marka adiga iyo aniga oo cibaado u soomaynay ka waran haddaad caafimaadna aad ka helaydo oo intaasoo caafimaad iyo intaas oo faa'iido ay ku duugan yihiin. waa bonus runtii oo maaragtay waa wax aad u weyn weeye oo ramadaanka laga helo weye. waa faa'iidaas caafimaadka ku jirta. waayihii u dambeydayna sanad kasta cilmi baaristaas iyo researchkaasu sanad kasta way soo badanayeen, sanad kasta waxbaa lagu soo kordhinayay. hadda dhowrkii sano oo aan ka shaqeynaya xarumaha Canada ku yaala mid ka mid a, asbuuc kasta waxaan arkaa iiga sheekay dadkaas dad muslimiin ah inay u badan yihiin oo family dhakhtarkaygu dhakhtar saasa waa ii soo recommend gareeyay intermittent fasting aan soomaa, ma quraacdo, casho iyo qadan sameeyaa. intermittent fasting waa igu soo laalaabataa mar walba waa arkaa. marka mar walba waxaa igu soo dhacda sida annaga maaragtay fursad ahaan aanba isaga haysano 30 maalmood la soomo, asbuuci 2 maalmood qaar ka soomaan. waa macnaha waa faa'iide aan la soo koobi karin. sidii loo soo socdo 1400 oo sano ka hor wax annaga diintu noo soo sheegtay. hadda sayniskii iyo culumtii kale caafimaadku ay dibdib iyo tartiib loo soo ogaanayaan. weliba paarankii xataa sidii isla socoto wax dhaaxaho bedelo ma jiraan. marka halkaas marka faa'iido badanaa ku jirta. marka haddaad soonto ogow inaysan cibaado keliya ahayn, caafimaad badan uu soonka kuugu jiro. midda ugu dambayda oo faa'iidada oo ay macnaha dadkaas ay u soomaan intermittent fastingka waa waxa la yiraahdo weight management. wadamadan hadda galbeedka in badan oo waxaa ka jirta overweight ama obesity wax la yiraahdaa ka jirta, oo culayska qofka oo bato oo xanuuna in ciidaas ka badan dadka ku dhaca waxaa sababa culayska qofka oo bato iyo obesity-ga sababta. culayska marka qofka oo bata maadaama xanuuno badan sameeyayo, intermittent fastingka oo soonka waxay u soomayaan waxaa ka mid ah in culayska lagu rido. waana lagu rido oo waa u shaqeydo. waxaad arkaydaa qof kula 3 bilood u dambeeyay 10 kiilo loos gareeyay. intermittent fastingkaasna wuxuu noqday waa mid ka mid ah waxyaalaha ugu weyn oo culayska lagu rido. marka adigana daawanaya waxaa laga yaabaa inaad isweydiido su'aal ah, waa soomaa 30 maalmood markaan soomo culayskayguna waxba kama degin. waa meeshaan islaayahay xoogaa iyagu way nooga duwan yihiin. 10kaas saacadood ama 8daas saacadood annagu inta badan markaan afurno wax allaalayo waxaan cuni karnaan cunaa. saliid ha dhihin, wax la shiilay ha dhihin, oodkac ha dhihin, subag ha dhihin, hilib ha dhihin, caana ha dhihin, waxba nooma kala socono. ayagu taa way nooga duwan yihiin oo waxay samaynayaan markay afuraan 10ka saacadood ama 8da saacadood oo ay afuran yihiin waxay samaynayaan 3 cunto bis ay cunayaan. brotiin cunto ah oo brotiinka waxaa soo galaya hilibkiiyaa soo galaya iyo ukuntii iyaa soo galaya, cunto brotiin leh. iyo waxay samaynayaan fiber diet, cuntooyinka loo yaqaano fiber diet waxaa la yiraahdaa cuntooyinka dhulka ka soo baxda. waa galleyda, waa digirta, waa masagada ama haruurka waxa loo yaqaano waqooyi iyo koonfur. xoogaa laajaduna Soomaaliga u kala bedelantaa laga yaabaa. haruurka ama masagada, waa qamardiga, waa misirta, waa waxyaalahaas dhulka ka soo baxa. iyo khudaarta kale oo sida saladka iyo waxyaalaha kale iyo fruitka iyo waxyaalahaas waa dietkaas oo plant based dietka la yiraahdo. iyo healthy fat maxaa loo yaqaanaa? jirku fat waa u baahan yahay.
waxaa loo yaqaanaa iyada lafteeda saliidda geedaha ka soo baxda oo ay ka mid tahay oleolive oilka iyo ay ka mid yihiin, oo ay ka mid tahay macsarada mid annagu aan u naqaano noo baxdaa. waxyaalahaasaa ka mid a oo ka mid ah oilka oo fishka ama kalluunka saliidda ka timaada healthy fat, taasaa loo yaqaana. waxay ka fogaadaan waxyaalaha saliid cadayda loo yaqaano, saliidda inta wax lagu shiilo dib haddana maqaayaduhu wax ugu shiilaan oo waa processed food la yidhaha, processed foodka ka fogaadaan. waxay ka fogaadaan cheeska oo product oo dairy productiga loo yaqaano, cheeska iyo caanaha iyo waxyaalahaasay iska daayaan, iyo macnaha subaga xoolaha iyo waxyaalahaas oo dhan markii la isku soo jamciyo taasoo dhanaa meesha laga saaraya. laakiin annaga qofku markuu afuro, maadaama annaga hadafkii aan u soonnay cibaado aheedoon meesha caafimaad lagu soo darin, wax alaaliya waxaan aragnaan cunaa. marka haddiiba maaragta qof caafimaad qaba aad tahay oo qaangaara oo aad rabto inaad faa'iidooyin caafimaad aad soonka ka dhex hesho, waxa aad cunaydo control, oo maaragtay haddii aad wax kastoo qashin kasta aad cunto meeshaadiyaad kusoo laabayda wixii faa'iido caafimaad maanta aad keentay haddana caawad baabi'inaysa. laakiin haddaad waxyaalaha processka iyo waxyaalaha la shiilo iyo aad iska joojida maanaad xoogaa iska yaraydo, fruitiska iyo cuntooyinka oo organic ah oo dalka ka baxa aad cunto, oo aad maaragtay bariiska iyo baastada iyo carbs la yiraahdo, waxyaalahaas iyagu ma cunaan markay soomaan. marka waxyaalahaas aad iska yaraydo oo aad cuntooyinka isku dheelitiran oo nafaqadana leh brotiinkana leh aad cunto, faa'iidadii caafimaadna waa ka helaydaa, midii haddee cibaadana horaad meel usoo dhigato waa soo soomta. marka waa soo gabagabaynayaa videoga. macnaha Facebook iima ogolahayo inta badan linkiyada wuu diidaa hyperlinkiga, laakiin researchadaas ugu yaraan 5 ka mid a linkiyadoodii oo 10kii sano u dambeeyay la sameeyey oo Mareykan iyo Canada laga sameeyey, qaybta YouTube-kan linkiga aan soo dhigi doono. haddaad videogan YouTube ka daawada linkiyada waa soo geli doonaa, oo ay ka mid tahay Maya Clinic ay ka mid tahay iyo sida ay u soomaan. midda ugu dambayda side effect ma leeyihiin oo waxyaalo oo ay khibradaas caafimaad soo jeediyeen. haa, haddii aad qof xanuunsantao diabetic qaba, dhakhtarkaaga la tasho inaad iska soontaa macnaha ma fiicna, oo waxyaalo badanaa keeni karto controlki inuu ka lumo iyo daawooyinkii qaabkii aad u qaadida iyo wax ka lumaan. marka dhakhtarkaaga la tasho. haddii aad teenage tahay oo aad yar tahay, waxa waaye iyada lafteedu growthkaagii iyo maaragtay qof soo koraya way soon iska joogta oo iska socda, iyadana ma aysan recommend garayn dadka oo teenage-ka ah oo iyo dadka yaryar oo soo koraya. sidoo kale dadka food disorder-ka qaba, food disorder waxaa leedahay dad waxaa jira cuntooyinka dhan maaragtay ka dido oo xataa markay cunaan iska matajiyo, food disorder aa leedahay, waa xanuun gooniya. dadkaasna iyaguna uma aysan recommend garayn because markii horeba cuntadiisu ay xumeed. marka dadka xanuunada oo lafaha daciifiya qaba oo bone loss-ka qaba oo density-goodu u hooseeya, iyagana laftoodu macnaha dhakhtarkaaga hala tashada yirahdo hadduu soomayo iyo sidii uu u soomayo. marka qaybtaasuna iyaduna waa qaybta xoogaa maaragtay u baahan in maaragta dadka kale ay xoogaa yar ka duwan tahay. marka waa soo gabagabaynayaa videoga, waa soo gabagabaynayaa. ramadaan mubaarak aan idin leeyahay meel kastoo aad joogtiin. maaragtay ramadaanka si nabadgelya ilaahay ha idinkugu dhameeyo meel kastoo joogtiin dhammaanteen, kuwa dalka jooga iyo kuwa dalka dibaddiisa joogaba. ramadaan caafimaad iyo nabad leh ayaan idin rajaynayaa. videoga sii share gareeya, isla share gareeya. maanta wixii ka dambeydana ogow ramadaanku maaragtay cibaadada ka sokow in caafimaad badan ku jiro, caafimaadkaasna allah noogu daro. salaamullahi calaykum. insha allah waa ismaqal dambe oo wanaagsan oo xiiso leh iyo is arag dambe. videoga sii share garee, like-ta ugu dadaal videoga dhinac kastood ka daawaydo, haddaad YouTube ka daawaydo iyo haddaad Facebook page ka daawaydo. salaamullahi calaykum.